داود يا سود وهذا كنال سرقار سود وهذا المرعى ويميم كنال سرقار وحنا طلعنا هاي مرة نقول معاه دوية هي هذه نكسب بيو وحيالي يقول لي حقنا أنا أركم مركز أسبوع وحيالي يقول لي حقنا أنا أركم لها نقوليها نعربية يا وقال مدير وأنا ولي جناح في جيدة سيدة أيو شقيا سوق الدواوين كأمشي كده هواوين الدواوين كصوصها سيد أنا ويوم هاي الدنيا تعرف هذا توحى لبعض طبعا بعض وهي حنون كورونا فيروسها dad badan oo Soomaaliya ka mid ahayna waxay u anqartaagayaan ama u dhagtaagayaan goobta daawada soo saari doono ma asbuucyo soo saari doona ma bilaha soo socda ayaa soo saari doona balaan sideedna sida suuqa daawooyinka uu shaqeeyo aqoonyahankaas sida uu dhigay balaan eegna waa in cajiib ah aragtida markaan fiiriyo waxyaalihii igu la yaab badnaayeen arkayay asbuucan anagoo qiimaha qaaliga ee daawooyinka ugu kalkato in ay dad badan caqabad ku yihiin inay caafimaad helaan sidoo kale waxaan dareensanahay daawooyinku inay ka mid yihiin badeecooyinka ugu muhiimsan nolosheena kuwaas oo noo saamaxaya haddii aan helno in aan sii noolaano haddii aan weynana in aan u dhimanno waa ilaahay hadduu noo qadaro markaas laakiin door weyn ayay ku leeyihiin nolosheena daawooyinku sida ay qortay majalada Forbes 10 sano u dambeeyay waxaa la yiraahdaa suuqa daawooyinku يعني أنا قيمها داوين كرو كعين الاعتبار وكرو كعين الاعتبار شجرة وين داوين صار ولا لا واحد وشقيان قاعة سوق مكة السوق اللي داوود وحى يعني استعمال واحد إلى هذا براءة الاختراع الصومالي وحكومة قناة منطقة على هاي فكرتها لهانشيها فكرتها لهانشيها تاس أيانا وسام حيسة إن السوق كسوق اللي قيمه أي روان داوود سوق كسوق اللي قيمه أي روان inta badan waxay ku soo geliyaan qiimo aad u sareeya oo dadka gadan kara ay yani kooban yihiin waa daawooyinka muhiimka ah way daawooyinka dhan ma ahan daawooyinka qaar bas raqiis qaar bas milixaad laakiin daawooyinka muhiimka oo aan halkan kaga hadlayno aqoonyahanku wuxuu noo sheegayaa sidee yani ay shirkadaha waaweyn uga faa'iidaystaan baahida dadka yani daawada markaas loo baahan yahay oo kale coronavirus maanta aad baa loogu baahan yahay sidee ay shirkadaha waaweyn uga faa'iidaystaan waxa uu soo qaadanayaa saddex dhacdo oo yaab leh shirkad la yiraahdo weyni waxa la yiraahdaa magaceeda Nagas Resource Biotechnology ayaa waxa ay soo saartay kiniinigaas waxa ay soo saartay 40 sano ka hor kiniinigaas waxa uu isku oolaan jiray suuqa si caadi ah suuqa u oolaan jiray ma ahan yani kiniini qaali ma ahan kiniini iska raqiis ah adoo kiniini iska caadi ah kiniiniga suuqa yaalo daawooyin kamid ah waa maalin maalmaha kamid ah waxa dhacday in ay kiniiniga qiimihiisa ay talacday 4,400 يعني ما عندها ولا يعني لو تنبغل كيلو صدق بقول كيلو أفر تنبغل كيلو وكن يأفر بقول كيلو واشيد أسكتي وسكت جرنا صوت أيضا العربي حويه شركة أيها وحصابة طلب كلينيكاس لقد طلبنا أتبع وصدق كلينيكاس لما جي يسوي حالي على مستين وهو داوي يعني كانسر كل عام سيدا درادي طلب منه وحصابتي وإدارتي كلينيك أدلو بعياي بحال معلوم waxay dalacday 1,400 kiilo taas oo u dhigan kiniiniga marka la afartan yani $50 inuu ahaa in la jeeda hal mar bay wax ka dhigan $700 waana arrin ku tusaysa shirkadaha waaweyn ee daawooyin soo saar inay u furan yihiin yani inay faa'iido sameeyaan ee wax miisaan iyo wax naxariisa aysan agtooda oo sida ay badan adduunka maanta jooga ay uga fakarayaan yani daawada coronavirus hadii la soo saaro in la qaybin doono sidoo kale walaalayaal waxaa jirta dhacdo kale ayaa iyadana jirta isla dhacdadaas aan dhamaystiro ninka oo ah shirkadaas yani qareenku ayaa la weydiiyey maxaa suuqa ugu cayaarsan baa kiniinigan suuqa si caadi u yaallay 40 sano kahor baa soo saaray suuqa si caadi u yaallay maxaa suuqa ugu cayaarsan intaad $50 uga kaxayseen adduunkiisana hal mar $700 waxa uu yidhi barnaamij ugu qoslo wuxuu yidhi kiniiniga waxa ku jira uu yidhi maadaam muhiim ah sidaa daraaddeed waqti badan baa naga galay يعني سيدا درادي ما أطلع قيمة كلينية يعني 40 سنة السوق يعني أنتو تندركي سبب القهر وحد يعني هدود العويدين هدي أطلع حسان يعني بحق قيمة معقولة يعني هدود العويدين يعني مرة يعني أنتاد كنتم دور قاعدين دور أو دور بيزين يعني سؤال أسأل أمور كتبه سيدو كله واحد يشتغل على كله أيضنا لعلها كله مركي يعني نشيء ضويال تيهو إنه قنص يقصو أو إذا أمس أو يحوي إنه قنصو mid ka mid ah shirkadaha waaweyn oo wadanka Mareykanka shirkadaha waaweyn wadanka Mareykanka laga leeyahay oo magaceeda leeyahay Spark Therapeutics magaceeda leeyahay
waxayna qaabilsan tahay inta badan daaweynta xanuunaha indhaha ku dhaca. inta badan weliba waxay daaweysaa indho la-aanta oo kale ayaa waxay soo saartay daawada waxaa la yidhahdaa loxostone la yidhahdaa. daawada qiimaheeda daawade qiyaas kartaa. daawadaas qiimaheedu waxaa weeye 850,000 oo dollar weeye. daawadaas qiimaheedu waa 850,000 oo dollar, halkii milyan ee dollar waxaa ka dhiman 150,000 keliya ka dhiman. daawadaas marka dadka caadiga shacabka adduunka ku nool haddaan fiirino, dadka adduunka ku nool yani hayntooda iyo dhaqaalahooda haddaan fiirino ma gadan karaan yani dadka caadiga dadku si u badan yihiin dadka hantiyaasha waas markii laga reebo. marka suuqa daawooyinka taas oo shaqeeya waa suuqa argagax iyo naxdintiisa la weeye. sidaasna waxaa qoray in kiniinka 850 lagu gadayo majalada Financial Times ayaa qortay. war maxaa tiri daawa waxaa la kala siistay 850,000 oo dollar. acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. warkaala aqoon war dadka daawada ka timiyaysan aqoon kaaliyeed leedanaa habisowdada filfish sanjibiisha hawaaji war miisan aqoon war gaalo aqoon caqli xuma gaalo sideelay daawo xuma u kala siistay 850,000 oo dollar. warmiyay walay war anigu marka intaas aan soo sheegay habisowdada iyo kaalgeen sanjibiisha markay waxa iga tiri waayaan baan habadayda paracetamol ka soo gata madaxa ku dejiya 850,000 baa daawada kala siistay. ninkan dhinacay fadhiyo waxaa la yidhahdaa odaygu moogay daawooyinkiisa khaaska uu leeyahay oo sida uu sheegay lindhaanta iyo kaaligeelka iyo habisowdada iyo hawaajiga iyo daawooyinkiisa khaaska ayuu leeyahay. asagoo paracetamolkaasun baa daawada u weyn iyo daawada u yar u ah. sidoo kale daawadayaal waxaa jirta dhacdo kaloo iyadana yaab leh yani suuqa daawooyinka si uu shaqeeyo uu noo sheegayo qormada dhexdeeda ayaa ku taala. shirkad waxaa jirta la yidhaahdo Maylan baa la yidhahdaa. waxaa laga leeyahay waa shirkadaha waaweyn iyaguna kamid ah shirkadaha Maraykanka ku yaala ee daawooyinka soo saara. inta badan sidaan ognahay dadka daawooyinka soo saara ay haddana dhoofiya waa dowladaha reer galbeedka weeye. Yurubta ha u badnaato iyo Ameerikadaas, Canada iyo Maraykanka iyo meelahaas. shirkaddan waxaa la yidhahdaa daawada Maylan baa la yidhahdaa. waxay caan ku tahay inay soo saarto daawo la yidhahdo Epopen. daawadan yani waa daawo markii hore ay suuqa tahay licaaggeedii waxaa la siin jiray $94. hal mar ayay waxay geysay $609, taasoo ka dhigan in ay kor u qaaday daawada yani sicirkeedii ama qiimaheedii 17 jibaar ay kor u qaaday. sidaasna waxaa qortay Wall Street Journal ayaa qortay. shirkadda Maylan waa shirkad weyn dowladda Maraykanka iyo Maraykanka dhexdiisa iyo dowlado tiro badan iyo siyaasadda Maraykanka saameyn ayay ku leedahay. saameynteeda heer waxay gaarsiin tahay ay faragelin ku samayso go'aamada ay qaadanayaan golayaasha Maraykanka. waxaa jirtay mar ay samaysay yani waxaa la yidhaahdo yani faragelin ayaa ku samaysay stateska Maraykanka qaar sharcigiisa. waxa ayna dabada ka riixaysay sharci ansixinaya daniga gaarka kaasoo ah daawada Epopen in ay khasab tahay in lagu dhex isticmaalo stateska qaar garoomada diyaaradaha, garoomaha lagu cayaaro, hoteelada, madaarista in lagu dhex isticmaalo. sidaa daraaddeed waxay ka dhigtay yani daawo asaasiya ka dhigtay. qiimaheedu marka hore uu ahaa $94. hal mar waxay geysay $609. sidaas waxaa qortay majalada ama wargeyska New York Times waa sidoo ka soo xigtay aqoonyahanku yar. qoraalku sidoo kale waxa uu sheegayaa daawadayaal sidee ay u sababtaa qiimaha qaaliga ah ama qaabka waxashimada oo ay u shaqaystaan shirkadaha waaweyn ee daawooyinka soo saara in ay dhigtaan sanadkii 10,000 oo qof. yani qoraal halkan uga sheekeynayaa waxaa jira shirkado kale oo iyaguna soo saara daawooyin been abuur ah. daawo waxay soo saaraan fake oo uusan waxba ka jirin. marka wuxuu leeyahay shirkadaha waaweyn ee daawooyinka saxda soo saara haddii ay suuqa ku keeni lahaayeen daawooyinkooda qiimo sax oo macquul ah oo iyagana aan khasaaro ku ahayn yani dadkuna ay gadan karaan. shirkadahan daawooyinka been abuurka oo sunta soo saara suuq ma aysan heleen. warbixin ay soo saartay midowga caafimaadka adduunka waxaa la yidhahdaa hay-adda caafimaadka adduunka waa la yidhahdaa WHO waa la yidhahdaa saasaan filayaa. warbixin ay soo saartay waxay ku tiri 10 kaniini ee lagu dhex isticmaalo wadamada soo koraya oo wadamo badan oo Afrika ay ka mid yihiin mid ka mid ayaa sun ah oo fake ah.
waa sida ay sheegtay hay-adii sidoo kale hay-addu waxa ay sidoo kale waxaan ka wadaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay wareysatay farmashiistayaal Afrikaan ah oo si yar oo cajiib oo naxdin haddana leh oo warramaya waxa ay yiraahdeen annagu markii aan daawo soo gadanayno aan dalbanayno yani waa iska Afrika iyo inta badan daawooyinka dibadda ayay kasoo qaataan waxaan soo qaadanaa oo dalbanaa oo soo gadanaa daawo raqiis ah taasoo ay dhowna dadkeenu ay naga sii gadan karaan bay yiraahdeen farmashiistayaashaas waxay u badan tahay daawooyin yani iska feegay yani marka hore daawo iska raqiis ayuu soo gadanayaa asagoo la socda dadkiisa iyo dadka ninkaas macmiilka ah waxa ay gadan karaan inta badan daawooyinka aad raqiiska ah waa daawooyin iska feegay waxaa la yiraahdaa warbixintu sidoo kale waxay sheegaysaa ganacsiga ka dhexeeya shirkadaha soo saara daawooyinka been abuurka iyo Afrika waxa uu gaarayaa 200 oo bilyan sidoo kale waxaa jirta warbixin kale oo ay soo saartay 2013 hay'adda caafimaadka adduunka waxay ku leedahay 122 kun oo caruur Afrikaan ah yani caruur Afrika ku nool ayaa sanad walba ku dhintaan daawooyin been abuur ay cuneen iyagoo isla kaga hortaga xanuuno khatar ah oo malaria ay ka mid tahay yani Afrika dhibaatooyin ku haya malaria oo kale marka shirkadahaas iyo Afrikaanku aad ayay iskugu walaaqan yihiin waana arrin naxdinteeda leh suuqa daawooyinka haddaan si guud uga sheekayno daawooyinka saxda ama ka hadlaya suuqa soo saara oo ay u badan tahay wadamada galbeedku America iyo Yurub meelahaas suuqa daawooyinku faa'iidada uu sameeyo wax ay gaartaa la yiraahdaa yani ama ka sareysa suuqa hubka lagu soo saaro yani suuqa hubka iyo mukhadaraadka lagu kala ganacsado macnaha marka waxaa la yiraahdaa shirkadaha waaweyn iyo wadamada soo saara daawooyinka ee haddana daawooyinka sii dhoofiya faa'iidada ay ka helaan sanadlaha waxa ay gaartaa 318 bilyan waana arrin aad iyo aad la yaab leh daawada isweydiino su'aal yar lacala haddii la soo saaro daawada coronaviruska bilaha soo socda ama sanadka gudihiisa ama sanadka ku xiga lacala haddii soo saaro ma is leedahay wadamada Afrika way gadan karaan daawadaas Soomaaliya kale is leedahay daawadaas way gadan karaan mise macaawin in lagu siiyo mooyee ma gadan karno maadaama aan soo sheegnay shirkadaha daawooyinka soo saara inaysan si bilaash ah tabarucaad aysan waxba u bixin oo aan ujeedo daawooyinku marka ay muhiim yihiin in ay qiimaha ugu sarreeya ay soo saartaan sababtoo ah waxaan ayaga soo saaray waxayna adeegsadaan sidaan sheegnay fikradda lahaanshiyahana waxay awood u siinaysaa in ay suuqa ku keenaan qiimaha ay rabaan aragtidiina qaybta hoose ee komitigana ugu reeba kanaalkan dad hore u taxnaydeen sargaar saaraha dalka ku cusubtiina like subscribe qadar saara هذه أفضل السلامية